hay-adda wadaniga ah ee Soodaafo ayaa maanta magaalada Burco si rasmi ah ugu soo gabagabeysay tartanka hibada iyo hal-abuurka ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale barnaamij lagu maalgelinayay 150 haween ah kaasoo ganacsiyo kala duwan ay ku abuuranayaan. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka sare ee hay-adda wadaniga ah ee Soodaafo, xogayaha fulinta dowladda hoose, xogayaha gobolka iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer. Maxamed Cabdullaahi Guuleed agaasimaha hay-adda wadaniga ah ee Soodaafo ayaa ugu horeyn sharaxaad kooban ka bixinaya barnaamijkan. xaflad runtii aad iyo aad loo soo agaasimay oo loogu talagalay in lagu abaalmariyo 150 haween oo dhameystay tababar maareynta ganacsiga yaryar oo muddo 2 bilood magaalada Togdheer uga soconayay iyo sidoo kale in lagu abaalmariyo 10 dhalinyaro oo ku guuleystay tartankii horaantii bishan halkan ka qabsamay magaalada Burco ee hibe iyo hal-abuur ee ku kala saabsanaa hidaha iyo dhaqanka sida curinta maansooyinka, farshaxanka iyo sidoo kale ciyaar dhaqameedka. mashruuca waxaa fulinaya hay'adda Soodaafo iyo iyadoo kaashanaysa gacan ka helaysa midowga Yurub oo markii koobaad hay'ad wadaniga oo dalka Soomaaliland ka diiwaan gashan ay toos ula shaqeyso midowga Yurub. wada shaqaynteedu waxay bilaabantay 2017 dhamaadkoodii bishii December. mashruucuna wuxuu bilaabmay 2018 bishii koobaad wuxuuna dhamaanayaa sanadkan soo socda haddii Ilaahay ka dhigayo 2020 bishii lixaad. ayaguna dhankooda waxaa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiintii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay munaasabadan waxaanay ku ammaaneen hay-adda wadaniga ah ee Soodaafo barnaamijkan ay soo qaban qaabisay. xafladatan ama munaasabadatan qiimaha badan leh ee maanta traininka 2 sanadood socday ee maanta traininkoodii halkan ugu soo xidhmay 250 haweenka maanta Burco oo waliba gaar ahaan badanku u badan yihiin sidaan u arko dhalinyaro badan yihiin waa u hambalyeynaa traininka 2 sanadood socday ee qiimaha badan leh waa soo dhaweynaynaa. waxaan kaloo halkan hambalyeeyo iyaga laftooda aan uga diraynaa hay-addan dhalinyarta Burco ee Soodaafo. hay-adda Soodaafo oo runtii gobolka Togdheer hawlo badan ka qabatay dhalinyarada gaar ahaan wax badan oo maanta muuqda oo la taaban karo tacab badan gelisay iyadana aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa. waxaan kaloo mahadnaqayaa dhammaan haweenweynaha runtii halkan soo gaarsiiyey ee ka qayb qaatay ku guuleystay barnaamijkan lagu maalgelinayo dhaqaalahooda kor loogu kobcinayo iyagana aad baan uga mahadnaqayaa. Soodaafo in badan waxay noognaynay dhalinyarada iyo haweenka magaalada la shaqayso oo ay wax la qabato oo ay sidii ay u shaqaysan lahaayeen ama xirfado kale u heli lahaayeen ay ugu tababarto waan u mahadnaqaynaa iyada. ugu dambeyntiina waxaa si rasmi ah loogu wareejiyay dhalinyaradii kala duwaneed ee ku guuleysatay barnaamijka hal-abuurka gobolka Togdheer iyo sidoo kale 150 haween ah oo laga soo xulay xaafadaha kala duwan ee magaalada Burco ayaa lagu wareejiyay 48,000 oo dollar kaas oo ay ganacsiyo kala duwan ay ku abuuranayaan. Cabdiqani Baafo, wararka telefishinka RTN magaalada Burco.